Assalaamu calaykum kulan wacan saaxiibayaal halkani waa Caasim Media ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Muuqaalkeena maanta ayaa waxa uu ku bilaabanayaa sida tan. Intaanan guursanin ka hor waan shaqayn jiray. Lacagta aan ku shaqeeyana qayb ayaan reerka siin jiray, qaybna aniga ayaa isticmaali jiray. Mararka qaarna wixii ii soo hara waan kaydsan jiray oo meel ayaan dhigan jiray. Qaybna ganacsi ayay iigu jirtay. Alxamdulillaah waan isku filnaa. Wax walba oo aan u baahdana waan qabsan jiray. Marka aan guursadayna waxaan ahaa gabar ka dhaqaale badan ninka ay guursatay. Balse ninka aan guursaday ma uusan ogeyn waxaan haysto. Kaliya waxaan u sheegay mushaar yar oo ka yar midka uu isaga qaato. Intaasna ima uusan weydiin jirin, waayo waxaan u sheegay inaan reerkeena siiyo. Maalintii dambe ayaan xanuunsaday, wuxuuna ii sii qaaday dhakhtarka. Baaritaan kadib waxaan siiyey warqadda dawada. Wuxuuna igu yiri, "Xabiibi iska sii fadhi, dawada ayaan soo iibinayaa." Wuuna iga tagay. Wax xoogaa ah kadib anigana waa ka daba baxay, waxaana soo istaagay albaabka agtiisa. Waxaan maqlay ninkayga oo leh, "Dhakhtar lacagta ima wada gaarayso ee qayb iga yara sug." Dhakhtarkana uu leeyahay, "Ma samayn karo midaasi ee dawada markaad qarashka heshid un wada iibso." "Dhakhtar haddaad doonto moobilkayga sii hayso ee dawada isii," ayuu leeyahay. Xaaskayga way murugoonaysaa haddaan u waayo lacagtii aan ku daweyn lahaa, balse wuu ka diiday. Ugu dambeyntiina wuxuu wacay shirkaddii uu ka shaqaynayay, wuxuuna ka codsaday in ay siiyaan bil mushaarkiisa oo horumaris ah, wayna u soo direen. Markuu lacagtii bixiyey ayaan halkaygii isaga soo noqday oo aan iska fadhiistay. Isagii oo qoslaya laakiin wejiga murugo ka muuqato ayuu ii yimid. Sidii ayaanan ku hooyanay. Habeenkaasi oo dhan ma uusan seexan. Marka aan iraahdo ma seexatidna wuxuu i dhahaa, "Xabiibtii hurdo ima hayso." Laakiin waxaan hubaa waxa uu ka fikirayay inay tahay kiradii guriga iyo biilkeena, maadaama uu bishii horumarin u sii qaatay. Anigaba habeenkaasi ma seexan, waayo waxaa aad ii qiiro geliyey siduu ninkayga wax walba iigu hurayo. Mararka qaar waxaan is dhahaa, hantidaada oo dhan isaga ma ku wareejisaa? Haddana naftu waxay i leedahay, "Maya ee hasiin, adiga ayuuba ku haystaa ee ma hantidaada ayaad ugu daraysaa." Dhowr maalin kadib ayaan go'aansaday inaan bal arrinta asxaabtayda kala tashado. Waxaana u tagay gabar aan saaxiibo nahay, waxaana u sheegay sida ay wax u dhaceen. Waxayna igu tiri, "Weligaa ninkaaga wax lama siiyo, rag ladnaantu waa ugu dartaa. Hadduu kaa dareemo in aad jeceshahayna wuu kaa tegayaa. Haddaad wax siiso ama aad wax u ururisana wuuba iska guursanayaa. Ee waxaagu gaar ha ku ahaadaan adiga. Dahab ku gado, waxaad bixinaysana reerkiina ku caawi." Sidii ayaana kaga soo tagay, laakiin murugadii weli igama dhammaan. Markay bishii dhammaatay waxaa nagala dalbaday bixinta kiradii guriga iyo biilkii dukaanka, laakiin waxaan go'aansaday inaan aniga bixiyo, isaga oo aan u sheegin. Waanan bixiyey. Isagoo aan ogeyn inaan bixiyey ayuu u tagay ninkii guriga iska lahaa si uu uga codsado in laga yara sugo kirada guriga. Balse waxaa lagu yiri, "Mudane, kirada guriga xaaskaaga ayaana siisay ee miyaadan ogeyn?" Isagii oo ka sheekaynaya dareenkiisa xilligaasi ayaa wuxuu yiri, "Mar waan xishooday, marna waan farxay, marna waan naxay, oo waxaan is iri malaha intay reerkeeda siinaysay ayay kirada guriga ku bixisay." Waxaan kale oo aan is weydiiyey, talow maxaa ku kalifay arrintaas? Duhurkii markii uu qadeeyey ayuu igu yiri, "Maxaad iigu sheegi weysay inaad kirada bixisay?" Anigana waxaan ugu jawaabay, "Maxaad iigu sheegi weysay mushaarkaaga inaad sii horumarsatay?" Intaas markuu maqlay wuu naxay, wuuna ilmeeyey. Wuxuuna bilaabay inuu ii sheego siduu ii jecel yahay. Wuxuuna yiri, "Danta ayaa i ciilaysa ee dahab ayaan meel walba kugu xiri lahaa." Macaanka hadalkiisa iyo diirimaadka laabtiisa ee aan ku jiifo iyo garaaca wadnihiisa ayaan isaga gamcay. Casirkii ayaana soo toosay. Anigana markaasi ayaan wax walba u sheegay. Maalintaasi kadib sida aan u midownay ayaa hantideennana u mideynay. Kaliya ma uusan ahayn ninkayga, balse xataa waxaan u ahaa maaneejirkiisa. Isagana waxaan ka keensaday jacayl iyo daacadnimo fara badan. Isagana heer ayuu gaaray. Tolkiisana wuxuu ka yahay
nin ugaas ah, waayo aniga ayaa ka dambeeya oo wax walba ku caawiyay, daacadna u ah. Guntii iyo gabagabadii, gabarey ninkaaga ama jaceylkaaga markuu kuu baahan yahay garab istaag oo caawi, waxaan shaki ku jirin inuu noqonayo ninka ragga ugu fiican, adigana adduunka kugu jecel. Halkaa ayuu ku egyahay muuqaalkeeni maanta oo aan ku soo qaadanay qisadani quruxda badan ee mudan in la faafiyo. Haddaba si dad badan u gaaro muuqaalkeenan ama fariintaani, fadlan muuqaalka like inoo saar, annagana aan u helno dad cusub ee nagu soo biiro. Tan intaan ku kulmayno muuqaal cusub, nabadgelyo.